بسم الله الرحمن الرحيم. دمان dhalinyarada madaxda ururka taageerayaasha ururka dhalinyarada u timid ceebta liido inay ku damaashaadaan u soo dalxiis tagaan muujiyaan dareenkooda nabadda ee ku aadan xaaladda waddanka xilligan uu marayo aadaan u soo dhaweynaynaa. أنا أقول الله مجا دلنيرة الصومالية جودهان جارهان دلنيرة الصومالية واستقطي يوث فور صوماليا وعائد الله إن هاي سنة كان سنة كيسة سنة دي الصوص على إلهي هالنوغر ديو نبض هذا كجرتو مدوارتا أو بش يبرواقة يبراري وناك إنتها بدن إن بكر هل كان ماشان وحاسبون نمد إن الموجنو درين كأن كوجهان نبض يستحقلك dhalinyarada Soomaaliyeed sida ogsoontihiin wadankan ku noolahay Soomaaliya Ilaahay nagu manaastay waa wadan Ilaahay uu siiyay kheyraad badan sidaas la mid ah waxaan dooranay in xeebta liido aan ku muujino shicaarka inaan jecelnahay dalkeena u taaganahay danihiisa gudashada waajibkiisa horinta nafta u dabaaldega farxadiisa la qaybsiga shacabkiisa murugta la qaybsiga farxadda haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay waxaan idin leenahay dhalinyaro u istaaga dalkiina ku tawaajibkiina ka qayb gala nabadda dhiirigeliya nabadda horseed u noqda horumarka dalkana u istaaga waddan kasta saa ogtihiin waxaa horumarkiisa iyo dibdhiskiisa iyo waxqabashadiisa iyo dhidhintiisa iyo diburidiisaba u istaagan markasta caalamka oo dhan dhalinyaradiisa waxa kaliya oo naga dhiman haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye isku xirka isku duubnaasha insha Allah idin waa la gaari doonaa Allahu akbar kala arrin inaan muujino waxa waaye labadan hadda jirta waa ogsoontiin sanadkan hadda aan taaganahay sanadkiisa hore xilligan oo kaleeto qofna uma suurtagelaynin inuu halkan ku damaashaado oo halkan uu ku nasto jimaha u soo aado waayo xaalad dagaal ah jirta ma hadda haddii ay nabad noqotay nabadaas waxartaa waxa la yiraahdaa sustainability in joogitaankeeda iyo ka qayb qaadashadeeda iyo joogteynteeda laga qayb qaataan rabaa ma ahan in qof walba uu yiraahdo meeshii waa nabad waa iska imaaday waxba igama gelin meel allaalo meel nabad ah arkiisa caalamka dad u taagan ku huraay naftooda iyo waqtigooda u huraay marka haddaan dhalinyarada Soomaaliyeed soo noloma gudboono inaan ka qayb qaadan nabadda iyo horumarka dalka waxaan diyaar u nahay annaga haddaan nahay gaar ahaan ururka dhalinyarada Soomaaliya istaag inaan ka qayb qaadano horumarka iyo nabadda iyo isku xirka bulshada isdhexgalka nabadda